madaxweynaha jamhuuriyadda Ireland Michael D Higgins ayaa saad arkayno maanta ubax dhigay beertii xasuusta ee geesiyaashii u soo halgamay dalkani Ireland kacdoonkii Easterka 1916 oo ku beegan 100 sano guuradii ka soo wareegtay markii dalka Ireland uu ka bilaabmay kacdoonkii xorriyadda ama madax bannaanida jamhuuriyadda Irishka inagoo barnaamijkan aynu si faahfaahsan aynu samayn doono waxa kale oo ka soo qayb galay Prime Ministerka iyo Prime Minister ku-xigeenka dawladda ku meel gaarka ah ee dalkani Ireland haddaba barnaamijkan oo aanu soo qaadanay waraysi aan la yeelanay Safiir Daawud Gelingel oo xagga taariikhda Soomaalida taariikhda dalka Ireland xogogaal badan oo ah barnaamijkani wuxuu socon doonaa ilaa iyo maalinta Isniinta ah oo bishu ay tahay 28 ilaa 29 waa barnaamijyo taxana ah oo aanu kaga sheekayn doono taariikhda dalkani Ireland 100 sano guuradii ka soo wareegtay halgankoodii iyo xorriyadoodii dawladnimo barnaamijkan waa barnaamijyada taxanaha inta mid lamida aynu iskugu iman doono waxaan idinka tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo